baahida gaarka ah dadka qaarkood waxay u arkaan inay tahay mid muuqata. haddii uu qofku isku qufulo inuu leeyahay baahi gaar ah, waxaa laga yaabaa inay soo wajahday niyad jab weyn oo markaas uu waxba qabsan waayo. yuusuf maxamed maalin ayaa qaacidadaas ku dabaqay noloshiisa oo isagu iskuma arko inuu yahay nin naafo ah. maadaama maartay lixaadka beel isma dhino nin lixaadka beelaa tahay maartay bal iska seexo maartay guriga joog nolol la rabaa nafaa leeyahay marka waxa ku fikirey in aan shaqaysto ma sha Allah walaalaha kamida islaamka mootadan iska leeyahay ama ka kireystay kiridiisana uga tuuraa in muddo ah ayuu gudaha magaalada Muqdisho uga dhex shaqaysanayay mootadan bajaajta oo uu ka kireystay nin ay saaxiib yihiin. Yuusuf 10 sano ka hor waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo lixaadkiisu dhammaystiran yahay, balse hoobiye hobow ah oo ku soo dhacay gurigii uu ku noolaa ayaa kala dhantaalay xubnihii jirkiisa. muddo dheer oo ay ku qaadatay inuu ka soo kabto dhaawaca kadib markii uu dareemay caafimaad, waxa uu go'aansaday inuu shaqaysto. mootadan ka horna waxa uu ii sheegay in uu soo qabtay shaqooyin kale oo xoogsi ah. walaal dadka macaamilkooda ka hadlo dadku maartay dadkan dad Ilaahay sinu maahan waa sida shanta farood Ilaahay ma simin dadka qaar wanaagsan oo kula maartay hor u soco shaqayso oo maartay ku dhiirgelinayo meeshii maartay inta ka bilaysay in gabadha ku siinayo kula maartay maadaama tan maartay dhalinyar oo maartay lixaadkiisa waayay oo hadana shaqaysana hor u sac ku dhahay dadna xoglay maxaa ku raacay adiga mooto maxaa ka ogta dadka kule dadna maartay oo ka dhistaagayaan. dadka uu la macaamilo Yuusuf ayaa ku sifeeyay nin shakhsiyad wanaagsan leh oo ballantan ku fiican. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki oo ah suxufi dhacdooyinka gudaha dalka ku soo gudbiya aaladda YouTube-ka ayaa ka mid ah dadka mootada Yuusuf uu darawalka ka yahay raaca maalin kasta. Yuusuf runtii waa nin ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba. runtii maalmaha ka mid ah ayaan isbaranay anigoo ka imaaday shaqo. runtii Yuusuf maalintaas aan isbaranay kadib waxaan noqonay dad saaxiibo ah oo markaas ka mid ah macaamiishiisa. sidoo kale waxaan go'aansaday in aan ku xirmo oo aan ka mid noqdo dadka kliintiga u ah ama dadka mar walba sida joogtada u raaca mootadiisa. dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee Soomaaliya ayaa badi uga haray shaqooyinka iyo inay nolosha ka sameeyaan horumar niyad jab uga imaanaya dhinaca bulshada, taasoo ku kalifta badankood inay isku arkaan dad ka duwan dadka kale. balse Yuusuf ayaa isagu dhagaha ka furaystay waxyaabaha u abuuri kara niyad jabka. Maxamuud Soofaysan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.